kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka Hubaal News qodobada wararka aad daawo doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheikh oo Kenya kaga sii gudbaya dalkii shanaad madaxtooyada Soomaaliya oo qaab kale u shaacisay heshiiska madaxda Kenya iyo Soomaaliya iyo qaadka Kenya goormeel la keenaya gudaha dalka Soomaaliya maxaase Soomaaliya ka dhigay suuqa kaliya ee qaadka Kenya la geeyo qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janaalka Hubaal News fadlan daawada hadad ku cusubtaa janaalkan ku soo biro kamid noqo saaxiibadeela wararka joogtada ee aan halkan ku baayina aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina laagtiinana way noo dhiiragelin aadna ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku tagay gudaha dalka Kenya ayaa halkaas kulamo kala duwan saacadii ugu dambeeyay kula yeeshay madaxda sare ee wadankaas oo ugu horeeyay dhigiisa Uhuru Kenyatta kulan dhaxmaray isaga iyo Uhuru kadib labada hogaamiye ayaa shir jiraayid ee qabteen waxa lagu shaaciyay heshiis 11 qodob ka koobnaa oo uu kamid yahay in qaadka Kenya sida ugu dhaqsiyaha badan loo geeyo gudaha dalka iyadoo sidoo kalena la sheegay in muddo 2 toddobaad gudahooda ay ku dhaqan galayaan heshiiskan Soomaaliya ayaana bedelka qaadka Kenya geyn doonto wadankaasi kalluun qodobada kale ee lagu heshiiyay waxaa kamid ahaa in la iska kaashado arrimaha ammaanka gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab xoga sirdoonka la isdhaafsado xuduudana la isku furo in danaha labada dal si wadajir ah looga shaqeeyo in la ixtiraamo madax banaanida iyo in la iska kaashado arrimaha bini'aadanimada Kenya ayaa waxa ay ogolaatay in dib loo bilaabo duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ee hore loo hakiyay waxa la fududeeyay caqabadihii ka jiray fiisaha Kenya gaar ahaan waxa la fududeeyay mas'uuliyiinta dowladda dadka haysta baasaboorka diblomaasiga iyo kuwa haysta service baasaboorka waxaa kaloo lagu heshiiyay in dadka haysta baasaboorka caadiga muddo 10 maalmood lagu siiyo fiisaha in guddi ka shaqeeya dhaqangelinta heshiiskan ay kulmi doonaan bisha soo socotay Agoosto sida hore u sheegeen beeraleyda qaadka ee dalka Kenya qasaare lixaad leh ayaa ka gaaray xayiraadda la saaray qaadkii ay u dhoofin jireen wadanka Soomaaliya jaadka la geeyo Soomaaliya ayay sheegeen inuu fursad shaqo u ahaa dad badan kuwaas oo ay sheegeen in haatan ay shaqo la noqdeen gudoomiyaha urur ay ku midoobeen beeraleyda jaadka ee dalka Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in maalin walba ay qasaaraan lacag dhan $150,000 maadaama aysan jirin suuq la geeyo qaadkii ay Soomaaliya geyn jireen haddaba maxaa Soomaaliya ka dhigay suuqa kaliya ee qaadka la geeyo dowladda Ingiriiska ayaa sanadkii 2014 waxa ka dhaqan galay mamnuucid lagu soo rogay qaadka oo ay u aqoonsatay inuu kamid yahay waxyaabaha maanka dooriya ayna isticmaalaan bulshooyinka dalalka Itoobiya Kenya Soomaaliya iyo Yemen dowladda Britain ayaana sheegtay xilligaasi in mamnuucida qaadka ay UK la jaan qaadi karto dalalka kale ee Yurub oo uu kamid yahay maadooyinka laga ilaaliyo dadka qaadka Kenya ay u dhoofin jirtay UK waxa sanadkii ka soo gali jiray lacag dhan $7.5 milyan dadka ku nool gobolka Meru ee dalka Kenya ee uu ka baxo qaadku ayaana xilligaasi ka muujiyeen walaac la xiriira saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta joojinta qaadka tallaabadaas ay qaaday dowladda Ingiriiska sanadkii 2014 ayaa meesha ka saaray dhaqaale badan oo ay heli jireen ganacsatada qaadka waxaana soo xirmay suuqii ugu weynaa ee qaadka loo dhoofin jiray mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa xilligaasi ugu baaqeen dowladda Ingiriisku inaysan mamnuucin isticmaalka qaadka hase yeeshee arinta UK dheg jalaq uma aysan siin inta wixii ka dambeeyay dalka Soomaaliya ayaa Kenya u noqday suuqa koowaad ee jaadka loo iibgeeyo isla markaasna laga helo dhaqaale tiro badan cadaadiska ganacsatada gobolka Meru ee dalka Kenya oo ah halka qaadku uu ka baxo ayaa dowladda cadaadis ku saareen tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya mamnuucday qaadka Kenya in arintan ay wax ka qabtaan oo ay ku wajahaan xal horseed u noqon kara in mar kale loo daabulo qaadka Kenya gudaha dalka Soomaaliya ganacsatada qaadka Kenya ayaana sheegeen in kalluunka ugu badani uu Kenya uga yimaado Shiinaha taasi oo ay sheegeen inaysan jirin sabab kalifi karta maadaama Soomaaliya ay ka soo dhoofsan karaan kalluun ma jirto sabab aan Shiinaha uga soo qaadano kalluun maxaa yeelay Soomaaliya oo aanu darisnahay ayaa ka heli karnaa kalluun badan oo wanaagsan waxaana jira waxyaabo kale
oo aynu Soomaaliya ka soo dhoofsan karno sida xoolaha nool iyo hilibkooda oo dalka Kenya ku yar, ayuu yiri gudoomiyaha ururka beeraleyda qaadka xilli uu arrimahaasi ka hadlayay. balse dhaqaale la'aanta dunida ka jirtana markaan u weecanana dunidu waxaa saameyn ba'an oo dhanka dhaqaalaha ku yeeshay COVID-19 oo sababay xayiraado lagu soo rogay dalalka dunida. sidoo kale waxaa xaaladda uga sii dartay dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo dhaliyay sicir barar saameeyay nolosha dadyowga caalamka. labadan caqabadood ee koroonaha iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya ayaa mar kale Kenya uga dhigaya arrin muhiim ah in heshiis laga gaaro arrinta qaadka oo labada dowladood ay raadiyaan xal rasmi ah si ganacsatada Kenya ugu suura gasho helitaanka dhaqaalihii tirada badnaa ee markii horeba ka soo gali jiray qaadka ay u iibgeeyaan gudaha dalka Soomaaliya. iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo heshiiska dhinacyada badan taabanaya oo ay gaareen dalalka Soomaaliya iyo Kenya, haddana madaxtooyada Soomaaliya oo ay ka hadashay arrinkaas war ka soo baxay ayay ku shaaciyeen heshiis ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal inay gaareen madaxda dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib socdaal uu Xasan Sheikh ku tagay dalkaasi. qoraalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa ahaa mid kooban oo isku dhex jira, halka madaxtooyada dowladda Kenya ee faahfaahisay warmurtiyeedka qodobeysan oo faahfaahsan kana koobnaa 11 qodob. labada madaxweyne ayaan isla qaateen qodobo xoojinaya iskaashiga amniga, dhaqaale iyo siyaasadeed ee labada dal, iyagoo isla gartay heshiis meesha ka saaraya caqabadaha dhanka socdaalka ee ka dhashay madmadowgii ku jiray xiriirka labada dal, waxaana muwaadiniinta Soomaaliyeed ee fursad gaar ah u helayaan fududeynta dalku galka Kenya iyadoo la soo celinayo duulimaadka shirkadii Kenya Airways oo si joogto ah u imaan doonta dalka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Villa Soomaaliya. sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Uhuru ay isla qaateen xoojinta iskaashiga ganacsiga ee labada dal, iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed ee fursad u helayaan inay dalkaasi u dhoofiyaan baaliyiri wax soo saarka kalluunka dalkeena lana furayo soodinta Soomaaliya iyo Kenya, taas oo qayb ka ah fududeynta dhaqdhaqaaqa badeecadaha iyo adeegyada labada dal. waa sida lagu yiri warkan. isla warkan ka soo baxay Villa Soomaaliya oo ay kaga hadleen heshiiskaas ay ku yiraahdeen labada madaxweyne ayaa si wadajir ah u go'aamiyay in guddiga wadajirka iskaashiga GCC da Soomaaliya iyo Kenya ay ku kulmi doonaan Muqdisho bisha Agoosto ee sanadkan si loo qaabeeyo iskaashiga olaha amniga, horumarinta beeraha, ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada, tababarada iyo xalweelista dhibaatooyinka isbedelka cimilada, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay Villa Soomaaliya. si kastaba dadyooga Soomaaliyeed ayaa saacadii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan u falanqeynayeen qodobada heshiiska ah oo ay gaareen labada dowladood, balse dad badan ayaa la yaab waxa ku noqotay war kooban oo ka hor heshiiskan lagu baahiyay warbaahinta dowladda, gaar ahaan page-ka Facebook ee Radio Muqdisho, kaas oo lagu shaaciyay in Kenya ay aqbashay go'aankii maxkamadda caalamiga ah ICJ. qodobada 11 ee heshiiskan ay gaareen labada dowladood mid kamid ah arrinkaas loogama hadlin. sidoo kalena labada madaxtooye ee Kenya iyo Soomaaliya ma aysan soo hadal qaadin arrin ku saabsan qodobkaasi. dad badan oo baraha bulshada isticmaala ayaana taas falcelin badan ka suubiyeen. sidoo kalena dadka qaarkood ayaa su'aalo ka keenayay bal waxa ay soo kordhinayso in Kenya qaadkeeda looga bedesho kalluun, balse dowladii madaxweyne Farmaajo ayaa tallaabo midaan la mid ah qaaday kadib markii Itoobiya ay kula heshiisay inay qaadkooda u soo dhoofiyaan gudaha dalka Soomaaliya beddelkoodna loo dhoofiyo kalluunka dalka Soomaaliya. isla wararkii la xiriiray arrimaha Kenya iyo socdaalka madaxweyne Xasan Sheikh ayaanu ku guda jirnay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuudna waxa lagu wadaa in wadanka Kenya uu kaga sii gudbo dalka Djibouti. madaxweyne Xasan Sheikh oo socdaal ku jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu ambabaxo wadanka Djibouti. waa sida ay tilmaamayaan xogaha hoose oo uu helayo Hubal News. xubno ku dhadhow madaxtooyada oo la hadleen Hubal ayaana sheegeen in laga yaabo in madaxweynaha uu Nairobi kaga sii ambabaxo dalka Djibouti, inkastoo ay dhici karto waa sida ay tilmaameen in madaxweynuhu dalku ku soo laabto isla toddobaadkan gudihiisna uu ambabaxo dalka Djibouti.
laakiin ilaha aanu warkan ka soo xiganay waxa ay tilmaamayaan in loo badinayo in madaxweyne xasan sheekh uu Nairobi kaga sii gudbo dalkaasi saacadaha nagu soo aadan soona gabagabeeyo socdaalkii uu ku joogo wadanka Kenya oo ay ugu muhiimsaneyd heshiis ay labada dowladood kala saxiixdaan. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii waad kala socoteen janalka Hubaal News fadlan daawade hadaad ku cusubtahay janalkan ka mid noqo saaxiibada ka hela wararka joogtada ah ee maalinlaha aan halkan ku baahino aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo dhiirigelin waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka janalka Hubaal News.